Allahu Akbar. Caalamka oo dhan waxa uu u tacsiyeynayaa fanaanad adduunka caan ka ahayd oo u dhalatay dalka Ireland, taasoo horaantii sagaashameeyadii abaal weyn u gashay dadka Soomaaliyeed markii uu dalku burburay. Waxay shalay ku geeriyootay magaalada Dublin ee caasimadda dalka Ireland iyada oo 56 sano jir ah. Fanaanada Sinead O'Connor sagaashamaadkii ayuu fankeedu dunida qabsaday. Fanka waxa uu heliyey inay ahayd qof aan runta ka gaban, codkeedana inta dulman ugu hiilisa. Sanadkii 1992 waxay telefishin ka daawatay dad Soomaaliyeed oo ay macluul haysato. Waxay ku deeqday in la iibiyo guri ay ku lahayd gobolka California ee dalka Mareykanka oo 2 sano kaliya ay lahayd, kaasoo qiimihiisu uu ahaa $750,000. Lacagtaas oo dhanna waxa ay ugu deeqday Soomaaliya xilligii abaartii cagabararka. Allah u naxariistay fanaanada Sinead O'Connor sanadkii 2018 ayay qaadatay diinta Islaamka, waxayna la baxday magaca Shuhada Sadaqa. Waxay tiri, markii aan juska labaad ee Quraanka akhriyay, waxaan dareemay sidii inaan weligayba Islaam ahaa oo kale. Fariin ay Twitter-ka soo dhigtay xilligaas ayay ku sheegtay inay asxaabteeda muslimiinta ah uga mahadcelinayso taageerada ay u muujiyeen, waxaana barta YouTube-ka la soo dhigay iyadoo adimaysa sawirkeediina ku bedeshay mid ay xijaaban tahay. Markii ay qaadatay diinta Islaamka bishii November ee sanadkii 2018, waxay ku tilmaantay dadka aan muslimiinta ahayn kuwa laga yaqyaqsado. Waxa kale oo ay hadallo xanaf leh ka qortay dadka haysta diimaha Masiixiga iyo Yahuudda. Iyadoo TV Mareykan ah ay malaayiin si toos ah uga daawanayaan, ayay jeexjeexday sawirka baadariga ugu weyn ee diinta Kirishtaanka John Paul, waxayna daba dhigtay la dirir cadowga runta ah. Dadka ka tacsiyeyay geerideeda waxaa ka mid ah madax kala duwan oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha dalka Ireland iyo dad badan oo caan ah. Allah u naxariistay fanaanadan maadaama ay abaal weyn u gashay dadka Soomaaliyeed. Waxa kaliya ah ee maanta ay tahay inay ugu abaalgudaan waa duco, waa halkii waabwaanjiheeye lahaaye. Dadka qofkii wax kugu taray, daacad kuugu hagar baxay, kaaga doonay meel adag, wuxuu galay wax doorsada si ka diiran ugu celi. Hadduu diiday waayuhu, noqon ruux ku dayn baxa, dibnihiya afkiiso, duco ugu abaalguda.